dugsiyada al-irshaad iskuul. bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulillahi rabbil aalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam. arday ku soo dhawaada maadadii Soomaaliga fasalkii 7aad cutubkii 4aad iyo geeraarka nabadda page-ka 123 waa anigu macallin Soomaali oo mar kale idin leh kulanti waxaan wanaagsan. geeraarka nabadda waxaa curiyay Cabdilaahi Maxamuud Xirsi oo magac dheeraa Salaan Carabay dadku ay u yaqaaneen. abwaanku waxa uu geeraarkan u tirinayay sababaha soo socda. waata koowaade waxa uu ku kala guntanayay labada arday ama laba beelood oo isku reer ah oo dagaal iskugu hub qaatay oo loo kala taag waayay. waa dagaal waa geeraar nabadeed waxa uu ugu caqli celinayay raggii colaadda hurinayay ee carooga afuufay dagaalka. waxa uu xusuusinayay waa qodobka saddexaad ee cawaaqib xumada iyo cirib la'aanta uu dagaalka sokeeye leeyahay. waa ka afraade abwaanku ilaahay markii loo diray hogaamiye dhaqameedka iyo culimada diinta ayaa loo diray markii ugu horeysay oo la yidhi ku kala guntada labada beelood. markii ay u taag waayeen ayuu ku yidhi anigu maydin daba maraa oo isku dayaa inaan kala kaxeeyo bas ha la yidhi. deedna geeraarka ayuu ku dhex tiriyey deedna ilaahay uu ku guuleeyey inuu dagaalkaas hakiyo. dadkii hubkii way iska dhigeen waana la iska qaaday waa la heshiiyey. colaadna mana way soo kicin ilaa muddo dheer. wuxuuna yidhi nin caloola cad joogayo maygaag ciidan warqaatay wax cibaara qabaayo balaayuu cirifkeediyo camalkeeda yaqaane wartolo wuxulka jooji. macnaynta nin caloola cad waa meel magaceed joogay oo maygaag ciidan warqaatay oo ninka maygaag la yidhaa ciidankiisa ka warqaato waraystay wuu cibaara qabaayo wuu khibrad iyo cilmi qabaayo balaayo cirifkeeda iyo balaayo dhibaatadeeda iyo camalkeeda wuu yaqaanaa wuu ogyahay talow colka jooji. in balaayo iyo dagaal cirifkiisa yaqaanaana kuma degdego ilaa ay qabsato mooyaane. nin habeena casheeye cadar aan har lahayn iyo oo ceryaama har lahayn iyo ceeryaama isugu toostayo inuu caafiyadiisa cabaar meel la fadhiisto caqligaani galayne wartalow cirka jooj. nin habeena dhargay oo casheeyey oo adduun haysta xoola haysta cadar aan har lahayn iyo daruur aan har lahayn oo khafiifa oo xagaagii bay badan socotaa oo cadar badan waxa la yiraahdaa waa daruur ceryaamaha xagaagii dabaysha dhex socoto dhibdhib yar oo biyaana sii deynaysa deedna qabow far badan bay leedahay. cadceedana kaama celiso oo iyo ceryaama ayaa isku toostayoo ceryaamaduna maxay waa dhado waxbaa isku yar toostaso yani humaag baa isku samaysmay aan sax ahayn waxbuu nidis geliyey inuu caafiyadiisa inuu camalkiisa cabaar meel la fadhiyo iyo dabeecadiisa oo cadhadiisa isku kala celiyo oo samro oo uu dul qaato caqligaani galayne wartalow cirka jooja. carabkaan ku hadlaayana nin caleentiisa cadaatiyo camadan garanayna kolkay caruura dhintaan cutub weyntuu idlaataa laysku canaan hadhowe wartalow colka jooja. carabkaan ku hadlaayana afkaan ku hadlayana nin caleentiisa cadaatay nin saacadiisa dhammaatay oo caleenta xagga laga keenay caleenta waxa laga keenay Soomaalidu waxay dhaqan ahaan aaminsaneen sheekada barleedii hore in dayaxa geed weyni ku yaalo qof kastaana xabad caleena ku leeyahay oo marka uu dhimanayo caleenta ayaa qalashaha inta cadaato ay soo go'daan. marka nin caleentiisa soo qaaso oo saacadiisa dhamaato dhiman doona iyo kabla caqliga ee waxba garanay wax magaratada ama kasta ah ayuu baan garanayn. dadka kale way fahmayaane colaadda la joojiyo. kolkay caruur dhintaan عرض محلينا ده دجال مركب وحافوفة
عرولة يسكن فتا دليرة على كشة دجالك وكعين هذا إذا دليرة يدجال كل بعضها عتبوين إطلاقه تدخل حبديه دليرة إذا عتبوين برا دليرة عتبوين إطلاقه ليس أنا هدوه بس أنا أنظر هبلو هذا وحافظ هي إنه يلا دجالك بلاي ولا أنظر هاي أنت تعلن الهيدين إما كات شوك تاني دجالك جوجيه لبدينا عوري يسوعوا برهدايو عدنا ويسو حقنا عيلا ويسو قبناي علا ويسو اوغين شنتي عادلهاي iyo curadkii habartay iyo califiin ma ilaawin shanta qof todoba qof ma ilaawin labadiinan cuure isku birhidaayo labadiinan urur wala wada jirin ee af istuulay ee cololbo urur keenay ciidana ee isku birhidaayo ee isku hanjabayo cidna way isu xignaa dad way isku xignaa qabiil way isku xignaa ciila way isku qabnay oo isku careysteen col way isku ogeyn dagaal way isku ogeyn shantii caad lahayd shantii caad ku jiray curadkii habartay ku jiray aan walaal ahayn isku hooyada in buu leeyahay ku jiray iyo califiin ma ilaawin waa rag beeshiisa kamid ahaa oo qolada kale ay dishay ay leeyahay ma ilaawin intaas ayuu 10 maanta inoo joogaya dilaayra waa inoo 10 qaybtiisa kale iyo maalinta arbacada dilaayra billahi tawfiiq dugsiyada al irshad school